wardegdeg oo goordhowna soo gaaray ayaa sheegay in qarax uu ka dhacay xarunta dowladda hoose ee Xamar xilliga uu qaraxu dhacay inuu ka socday shir looga hadlayay amniga magaalada Muqdisho ka oo shir gudoominayay gudoomiyaha gobolka Banaadir wararka ayaa tilmaamaya in xilliga uu qaraxu dhacay ee halka sidoo kale ay ku sugnaayeen mas'uuliyiin ka tirsan dowladda federaalka Soomaaliya dadka goobta ku sugnaa waxaa la sheegay inuu ka mid ah Xasan Cali Nuur Shood warar aan la hubin ayaa sheegaya in uu dhaawac ka soo gaaray qaraxa gudoomiyaha gobolka Banaadir ahna duqa magaalada Muqdisho nin isku soo xiray waxyaabaha qarxa ayaa si xoog ah ku soo jiray ilaalada albaabka hore ee xarunta dowladda hoose ee Xamar isagoo isku qarxiyay bartamaha xarunta dowladda hoose ee Xamar qarax ismiidaamina ayaa goordhow ka dhacay xarunta aqalka dowladda hoose ee Muqdisho ee maamulka gobolka Banaadir oo ku taala degmada Xamar Weyne ee gobolkan Banaadir qaraxan ayaa la sheegay inuu fuliyay qof naftahaliga oo isku soo xiray waxyaabaha qarxa kaas oo gudaha ku dhex qarxay wararka ayaa waxay sheegayaan in halkaas uu ka socday shirka amniga maamulka gobolka Banaadir oo gudoominayay gudoomiyaha gobolka Banaadir injineer Cabdiraxmaan Cumar Cismaan Yariisow waxaa la sheegay tirad mas'uuliyiin inay ku dhaawacmeen halkaasi waxaa kamid ah dadka dhaawacmay gudoomiyaha gobolka Banaadir ahna duqa Muqdisho injineer Cabdiraxmaan Cumar Cismaan Yariisow gudoomiyaal ka tirsan degmooyinka gobolka Banaadir iyo agaasimayaal halkaas ku sugnaa xarunta gobolka Banaadir ayaa maanta waxaa tagay wakiilka qaramada midowga u qabisan arrimaha Soomaaliya James Iswan kaas oo halkaas lagu soo dhaweeyay wali ma jirto wax faahfaahin ah oo laga bixiyay qaraxaasi oo ka hadleen mas'uuliyiinta maamulka gobolka Banaadir marka laga reebo in halkaasi uu ka dhacay magaalada Muqdisho ayaa waxaa ka dhacay qarax ismiidaamina waxaana lagu soo waramayaa in khasaare xoog leh uu geystay qaraxaas warar aan la hubin ayaa sheegaya gudoomiyaha gobolka Banaadir in dhaawac uu ka soo gaaray weerarkaas isqarxinta ah ee ka dhacay xarunta gobolka Banaadir maanta halkaas waxaa shir ballaaran ku lahaa wakiilka qaramada midoobay ee arrimaha Soomaaliya James Iswan iyo gudoomiyaha gobolka Banaadir munaasabad ballaaran halkaas maanta mar lagu qabtay warar kala duwan ayaana ka soo baxaya qaraxaas ismiidaaminta ah ee ka dhacay xarunta gobolka Banaadir gawaarida gurmadka degdega ah ayaana ku qulqulaya goobta qarax uu ka dhacay